wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnaynayno barnaamijka ku faahfaahinaynaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa Donald Trump ayaa si toos ah ugu eedeeyay Iran inay ka dambeysay ama inay dhibaataysay xabad joojintii ay ku heshiiyeen iyaga iyo Iran. haddaba hadalkan ayaa wuxuu samaynayaa macno weyn madaxweynihii Mareykanka xabad joojintii isaga iyo Iran ka dhaxaysay inuu Iran ku tilmaamo inay xabad joojintii jabisay waxa dhici kara mar walba dagaal. haddaba ninkan muxuu ku haystaa Iran oo uu leeyahay xabad joojintii way jabisay. haddaba wararkii ugu dambeeyay arrinkaas haddaan idin la wadaago, Trump wuxuu sheegay ayaa la leeyahay Iran in ay riday diyaarado drones oo ay ku weerartay markab maraya Hormuz. madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay ilaa 4 diyaaradood oo kuwa droonka weerarka ah in ay ku weerartay Iran markab marayay maranbiyoodka Hormuz. waxa uu sheegay in markabkaasi mid ka mid ah diyaaradaha ay ku dhacday wuxuuna ahaa markab weyn oo kuwa shixnadaha qaada ah, waxaana ay u geysatay dhibaato ayay u geysatay oo halka markabka khasaara soo gaaray. waxa uu sheegay ciidamadiisa Mareykanka inay 3 soo rideen diyaaradaha droonka ah, wuxuuna sidoo kale toos u sheegay in ay arintani tahay meel ka dhac heshiiska xabad joojinta ee ay wada galeen Mareykanka iyo Iran. marka waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Iran ilaa hadda wali kama hadlin. shalay lagu bilaabay Iran Mareykanka ciidankiisa waxay yiraahdeen iyo mas'uuliyiin Mareykana gantaale ku dhufatay markabka. gantaalkaas shalay ilaa xalay ilaa saaki la waday. hadda Trump wuxuu leeyahay galabta wuxuu yiri 4 diyaaradood oo drone ah ayay ku soo weerartay markabka. 3 kulaha annaga soo ridnay, midaa ku dhacday oo khasaare xoog leh markabka u geysatay. isagu markuu muxuu leeyahay drone lagu soo weeraray. askartiisii iyo mas'uuliyiin kale shalay ilaa xalay maxay lahaayeen gantaal aan la garanayn ku dhacay. marka wararkaas oo dhan way iska hor imaanayaan, laakiin waxa la yaab leh Iran wax jawaaba maba ka bixin. annaga wax ku dhufanay iyo ma ku dhufanin ha sheegin. ilaa hadda wax ay arrinka kaga hadashay ma jirto. dhanka kale laakiin jawaab kale bixiyeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran. sababtoo ah markii Trump uu hadlay kadib waxa iyaguna hadlay saraakiil Mareykana oo ciidamada ka tirsan waxay yiraahdeen waxa jira xiriiro naga dhaxeeya annaga iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo ku saabsan ilaalinta Hormuz. hore ka soo boodeen caawa ciidanka ilaalada kacaanka waxay leeyihiin wax xiriira oo aanu la leenahay oo aan la yeelan doono ciidanka Mareykanka ma jiraan. Hormuz may shaqo ku leeyihiin, annaga Hormuz iska leh. maxay tahay marka waxa aan ku shirkoobayno aan ka wada hadlayno oo aan u shaqaynayno wariba kaanu inkaaray qabaani leeyihiin. nimankan marka ilaalada kacaanka waxay leeyihiin annaga nimankaan lama xiriirayno mana la xiriirno wax xiriirana nagama dhexeeyaan. Hormuzna annaga iska leh maba nagala hadli karaan. sheekadu marka mar walba way kacee way dagee way kacee way wareeree sheekada dhana qasan. haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaas, ciidanka ilaalada kacaanka Iran caawa war ay soo saareen waxay si kulul u beeniyeen inuu jiro xiriir ka dhaxeeya iyaga iyo Washington. ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay yiraahdeen sheegashada mas'uuliyiin Mareykana inuu jiro xiriir toos ah oo ka dhaxeeya Iran iyo Mareykanka inay tahay arrinkaasi mid aan waxba ka jirin oo been abuurasho ah. ciidanka ilaalada kacaanku waxay sheegeen in xiriir aysan la samaysanin Mareykanka, waxaana ay yiraahdeen mana dhici doonto inaynu wax xiriir yeelano innaga iyo Mareykanka yiraahdeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran. nimanka warkoodu iyagana waa cad yahay. midda kale waxa leeyahay waxa telefoonka ku wada hadlay wasiirada arrimaha dibadda Iran iyo Imaaraadka. mawduuca guud ee warbaahinta la wadaagay in la iska kaashado amniga gobolka
in maaragtay la taageero dadaalada nabadda ee socda iyo heshiiska maraykanka iyo iiraan saas waaye laakiin fariimo kale ayaa ku hoos jiraa laleeyahay sababta ay nimanka wax falanqaynaya u leeyihiinna waxay tahay waxaa wax wacayaa la leeyahay caraaqji wasiirka arrimaha dibadda iiraan isagaa wacay nimanka imaaraatiyiinta maalmahan marka gabgabta ay wadeen annaga maaragtay meeshan hurmus waxbaa ku leenahay wasaanaa samaynaynaa nimankaa marka fariin hoosaa loo gudbiyo waxaa la yidhaahaye istajiya xaalkiina umaynaa begin maalmahan haddaad karbaash rabtaan waa ladii karbaasha waayo marka waxaa leeyahay sababta caraaqji uu u wacay asaa fariin u gudbinaya wayna caddeeyeen oo imaaraadka waxay yidhaahdeen wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka ayaa waxaa soo wacay uu la hadlay caraaqji marka macluumaad guuda marka waxay yidhaahdeen dadka wax falanqaynaya warbaahinta la siinayaa laakiin alaab hoosaa jirta oo nimankan loo wacay ujeeddaa loo wacay imaaraadka ujeedadaa loo wacay marka ujeedadaas marka waxa waaye aye iska jira waaye haddii kale waa isnaqaanaa waaye marka adheetusoo wararkii ugu dambeeyey sheekada ayana laga qoray haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimaha ku saabsan waxaa leeyahay wargeyska la yidhaahdo alqudus wuxuu leeyahay waa xiriirkii ugu horreeyey tan iyo markii dagaalada ay bilowdeen dhex mara imaaraadka iyo iiraan waxayna ka wada hadleen arrimaha kasoo kordhay gobolka haddaba warbixinadu way sii socdeen waxaa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda imaaraanka cabdallah bin zaayid ayaa dhigiisa iiraan cabbaas caraaqji waxay ku wada hadleen telefoonka maanta oo jimca waxayna iska warsadeen xaaladda gobolka heshiiskii isfahamka ee dhowaan dhex maray maraykanka iyo iiraan iyo sidii loo dhammayn lahaa dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka ayaa soo dhigtay baggeeda twitterka ama x in markaasi cabdallah bin zaayid uu helay xiriir telefoon oo kaga yimid caraaqji iyagoo ka wada hadlay arrimaha gobolka marka waa kaas wasaaradda arrimaha dibadda iiraan marka ayadaa waxay leedahay waxaa la soo wacay wasiirkooda lasoo wacay waxaa soo wacaya midka iiraan marka midkii wax wacaya sideedaba dadka wax falanqaynaya waxay leeyihin siyaasadda ninka wax wacaya ayaa muraad leh ninka wax wacaya ayaa muraad leh waana siday tahay qof adiga haddaa wacdo adaa muraad leh waxbaa rabtaa inaa ogaatid ama wax rabtaa inaa u sheegtid laakiin qofku wax la soo wacay isagu muraad ma lahayn laakiin muraadkii laga lahaa u dhagaysanaa marka nimankan marka fariinaa loo diraa laleeyahay fariintu marka waxay tahay weli si rasmiya looma sheegin qodobka isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa arrin kale ee muhiima jirta oo soo korortay israa'iil waxay sheegtay inay meel buuro ah ciidankeedu ay qabsadeen saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta dhanay gelisay ciidankeenu meeshaasay si buuxda ula wareegeen way qabsay waa koonfurta lubnaan meel maalin hore dagaal inta ka dhacay lagu qararamsaday oo dhagaha looga raacay waaye haddaba marka xisbullaahi ayaa goor dhow marka war jawaab ah soo saartay xisbullah waxay si kulul u beynisay israa'iil inay qabsatay buuraha la yidhaahdo cali daahir xisbullah waxay sheegeen in ay nafyi tahay oo si kulul ay u beeninayaan weliba wararka la baahiyey ee sheegaya in ciidanka israa'iil ay qabsadeen buuraleyda la yidhaahdo cali daahir oo markaasi dhanka bari magaalada nabdiya la yidhaahdo ee koonfurta lubnaan waxay sheegeen warkaasu inuu yahay midaan waxba ka jirin dagaalyahankooduna ay ku sugan yihiin goobta oo markaa ay diyaar u yihiin cid kasta oo soo dhaqaaqda oo ciidamada israa'iil ka tirsan inay halkaasi nagta kaga saaraan marka xaalkaasu isaguna halkaas ayuu marayaa wararkaas ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn waa hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu kusoo gudbinay barnaamijyadaydii koowaad